kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kooda ugu waaweyn waxaa kamid ah xiisada Ukraine saddex aag oo Ruushka ka bilaabi karo duulaanka laga baqayo haddaba goobahaasi laga cabsida qaba xilligan iyo halka ay dhacaan ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan dawladda Mareykanka oo ka digtay duulaanka Ruushka iyo Ukraine inuu ku yeelan doono cawaaqib gudaha dalkeeda warka soo baxay Mareykanka ayaan idin heynaa sidoo kale warka waxaa ku jiri doona Joe Biden oo sheegay in si degdeg ah ay ugu jawaabi doonaan duulaanka Ruushka uu ku qaadayo dalka Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilaabnay xiisada ka taagan dalka Ukraine saddex aag ayaa Ruushka laga yaabaa inuu ka bilaabo duulaanka laga baqayo xilli aan wax natiijo ah laga gaarin dadaalada diblomaasiyadeed oo maalmihii la soo dhaafay lagu doonayay in Ruushka looga baajiyo duulaanka la sheegay inuu ku qabsan rabo dalka Ukraine ayaa waxaa soo badanaya wadamada muwaadiniintooda kala baxaya magaalada Kiev Ruushka ayaa ciidan ka badan 100,000 oo askari iyo hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu ku daabulay xuduudda uu la wadaago Ukraine waxaana taasi ay abuurtay walaac ah in duulaanka uu bilaaban karo xilli kasta haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa saddex aag oo Ruushka uu ka bilaabi karo duulaanka military ee la rumaysan yahay inuu ku qaadi rabo dalka Ukraine bariga Ukraine waxaa si weyn indhaha loogu wada hayaa gobolada Donetsk iyo waliba Luhansk ee ku yaala bariga Ukraine balse sheegay inay ka go'een dalkaasi tan iyo sanadii 2014 waxaana deegaanadaasi ku dagaalamayay ciidamada Ukraine iyo fallaago gooni u goosad ah oo gacan ka helaysa Ruushka quburada militariga ayaa waxa ay rumaysan yihiin in aagaasi uu yahay kan ugu sahlan ee Ruushka uu ka bilaabi karo duulaankiisa maadaama uu horay u geeyay ciidan xoogan muuqaalo satellite-ka lagu qaaday oo ay baahisay qaar kamid ah warbaahinta galbeedka ayaa muujinaya in ciidamada Ruushka ay maalmihii la soo dhaafay wadeen dhaqdhaqaaq ay markaasi ay ugu dhawaanayaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine Ruushka ayaa la rumaysan yahay in ciidan iyo hub uu ka daabulay saldhigga weyn ee Yelny uu geeyay gobolka lagu magacaabo Bryansk ee u dhow Ukraine qiyaastii 700 oo taangi ayaa la rumaysan yahay inay hadda halkaasi ku sugan yihiin ciidamada Ukraine ayaa difaacyo adag ka sameystay aagaasi waxaana ay isku diyaarinayaan duulaan xilli kasta uga imaan kara dhanka Ruushka Belarus ciidamo tiro badan oo toddobaadkii la soo dhaafay uu Ruushka geeyay dalka Belarus oo xiriir wanaagsan la leh Moscow ayaa walaac xoogan ku abuuray dalalka galbeedka Ruushka iyo Belarus ayaa 10 maalmood ka hor waxa ay shaaciyeen in ciidamadooda ay wadajir ay u sameynayaan dhoolatus military waxaa la rumaysan yahay in Ruushka uu ciidamadii ugu badnaa tan iyo dagaalkii qaboobaa uu u diray Belarus iyadoo uu xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg uu ku dooday in ciidamadaasi ay gaarayaan 30,000 oo ay ka mid yihiin kuwa howlgallada gaarka ah fuliya ee loo yaqaano Spetsnaz-ka iyo waliba diyaaradaha dagaalka ee Su-35 wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskaasi oo loogu magac daray Allied Resolve 2022 uu qayb ahaan ka hortagi doono cadawga dibadda Crimea Ruushka ayaa Crimea xoog kula wareegay sanadii 2014 waxaana ay ka mid tahay aagaga la toonsan yahay in xukuumadda Moscow ay u adeegsan karto duulaan karana Ukraine muuqaalo lagu duubay satellite-ka ayaa muujinaya in Ruushka uu ciidan iyo waliba hub badan geeyay caasimadda Crimea ee lagu magacaabo Simferopol isla maalinta muuqaalka la helay ayaa waxaa sidoo kale la ogaaday in Ruushka uu dhowr markab oo dagaal ah geeyay dekedda ugu weyn ee Crimea wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaana Khamiistii baahisay sawirada 6 maraakiibta dagaalka ahi oo ku xirtay dekeddaasi ciidanka badda ee Ukraine oo arintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in Ruushka uu aag military ka dhigay badda madow si uu markaasi cadaadis u saaro xukuumadda Kiev iyo waliba caalamkaba wasiirka gaashaandhigga Britain Ben Wallace ayaa sheegay in dadaalada diblomaasiyadeed oo ay wadaan dalalka galbeedka si looga baaqsado in Ruushka uu ku duulo Ukraine ay la mid yihiin kuwii lagu hortagay dagaalkii labaad ee dunida Wallace ayaa u sheegay wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa London in xaalku hadda uu marayo sidii maalmihii ugu dambeeyay ee lagu qancin rabay nidaamkii Naaziga Jarmalka inuusan bilaabin dagaalka hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli hogaamiyaasha Mareykanka iyo Faransiiska ay sabtidii telefoonka ay kula hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
madaxweyne Joe Biden ayaa Putin u sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay dhaqaale ahaan wiiqi doonaan Ruushka haddii uu bilaabo duulaanka. Ruushka ayaa dhankiisa waxa uu ku doodayaa in xukuumadda Washington ay ku guuldareysatay wax ka qabashada walaaca amni oo ay qabto xukuumadda Moscow. Xilligaana waxaa la tilmaamayaa in saddexdaasi aag oo ay ka mid tahay dalka Belarus sidoo kaleeto laga cabsi qabo in bariga Ukraine iyo gacanka Crimea uu Ruushka xilligan weerarada kaga qaadi karo dalkaasi Ukraine. dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ka digtay duulaanka Ruushka iyo Ukraine inuu yeelan doono cawaaqib gudaha dalkeeda ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa ka digay duulaanka Ruushka iyo Ukraine inuu ku yeelan doono cawaaqib gudaha Mareykanka. Haddii Ruushku go'aansado inuu soo galo dalkaasi, waxay sidoo kale ku yeelan doontaa cawaaqibka halkan gurigeena. Biden ayaa ku yiri hadalkaasi mar uu hadal ka jeedinayay aqalka cad ee looga arrimiyay dalkaasi. Dadka Mareykanka waxa ay fahansan yihiin in difaacidda dimuqraadiyadda iyo weliba xorriyadda aysan marnaba dhibaato la'aan ahayn. Waxa uu sheegay in jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta ay ku midaysan yihiin rabitaankooda ah in ay difaacaan mabaadi'deena aasaasiga ah ee labada xisbi iyo weliba inta badan mabaadi'da Mareykanka. Laakiin waxa uu intaasi ku sii daray inay keeni karto in qiimaha tamarta sare loo qaado. Kama dhigi doono in tani ay tahay mid aan xanuun lahayn, ayuu yiri, isagoo xusin Mareykanku uu la shaqeynayo soo saarayaasha tamarta si ay u bixiyaan gargaarka bamka gaaska. Waxa uu carabka ku dhiftay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo isku dayga lagu dhibaateynayo dadka Mareykanka ah oo ay ku jiraan aaladda internetka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana xilligan waxa uu ka digayaa Ruushka in duulaan uu ku qaado Ukraine inay ku yeelan karto cawaaqib gudaha dalkaas Mareykanka. Dhanka kalena Joe Biden waxa uu sheegay in si degdeg ah ay ugu jawaabi doonaan duulaanka Ruushka uu ku qaadayo Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in Mareykanka iyo xulafadiisa ay si degdeg ah oo go'aan leh ay ugu jawaabi doonaan duulaanka cusub ee Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi, iyadoo markaasi Chancellor-ka Jarmalka ee Olaf Scholz uu markaasi isu diyaarinayo inuu u safro Kiev si uu markaasi u qaboojiyo dhibaatada. Balse xiisadda ayaa weli kacsan, iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ay hakiyeen duulimaadyadii hawada Ukraine. Safaaradaha shisheeye ee ku yaala magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa kala baxay shaqaalihii aan muhiimka ahayn. Dalalku waxa ay ku booriyeen muwaadiniintooda in dalkaasi gebi ahaanba isaga baxaan. Daadgureynta jaanibta iyo weliba joojinta duulimaadyada ayaa qeyladhaan ka dhex dhalisay dadka reer Ukraine. Mr. Zelensky, madaxweynaha waddankaasi Ukraine, ayaa ku booriyay xasiloonida iyadoo ay jirto hubaal la'aan iyo weliba niyad jab, halka Ruushka uu sii wado in uu markaasi baaro eedeymaha reer galbeedka ee ah inay markaasi isku diyaarinayaan inay weeraraan deriskooda. Madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu tilmaamay in dadka dalkiisa waxa ugu weyn oo xilligan ay wajahayaan ay tahay cabsida, taasina ay sababtay dhaqdhaqaaqyada ciidamada militariga Ruushka ay ka wadaan xadka dalkaasi Ukraine. Guudaan daawadayaal, waxaa intaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.